أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الثقلين محمد بن عبد الله طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وسلسلة إني أين أقوم قعدرني لقد جئناكم بالحق. سلسلة إني يضع هيد أيا إن شاء الله قيبت هذه سديرات أيان ما أنت إدين سوقد بنينا بإذن الله الباري. وحين كظهر لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكتبي مركي وجيريون هيي وأولاده يسووا لي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. سيدا كتمت بخاري يا مسلم يا غير كيبا كتمت رسول كانوا صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وحكتبي بير فدق اللي يراهدو بير تاسي وحكسوا بحو فاطمة يا إسكالا هيد. رسول كانوا صلى الله عليه وآله وسلم وحانو مقلنا إنا لا دحلين أنبياده، لكن قرآن كريم كأن مشري انتهى إيضاء حديث وننكي لديه جرى أبي بكر بن أبي قحافة جيب كيسا كجب صدي أو أحد من الأكاذيب ومن الأقاويل أو جيب كيسا كانوا بين أنسل إيراد لهينا أيودول صار فاطمة الزهراء حقوق ذا إيا حق فاطمة وكل عي أبو بكر ومثل كمان تقبل بذن oo Soomaaliyeed lagu dhaco loona sheego inaysan irtiga aabahood ama dhaxalka aabahood aysan lahayn gabdho badan oo Soomaaliyeed. Abu Bakar si toos ayuu Fatima u dhacay isaga iyo saaxiibkii ninkii la dhihi jiray Umar ibn Khattab si aan geed loogu soo gabanin baa loo dhacay. Fatima Abu Bakar way u timid oo waxay weydiisatay markuu rasuulku geeriyooday rasuulka hortoo nimankan maynan aasina waxay aadeen meel la yiraahdo Saqiifa bani Saacida geed weyn oo xagga kora aha oo barxa magaalada afkeeda aha oo lagu goleyn jiray oo ansaar iyo muhaajiriin ay wada fadhiisan jireen oo shaxda lagu dheeli jiray ayaa la isugu tagay. Sa'ad ibn Ubaada oo ansaarta waxa weeyaan odaygeedii ahaa ayaa meesha loogu tagay oo yiri hogaanka annaga ayaa iskale war malahdiina annaga ayaa iskale baa la yiri idinkuna wasare ayaad nootiin dood aan caadi ahayn baa dhacday. muddo dheer oo maalmo aba meesha la fadhiyay oo qub iyo qacda la isku hayay rasuulullaahi maxamed intay maqnaayeen ayaa la aasay. sida iyada waxa laga warinaya Aisha binti Abi Bakr inaysan xaadirin labadaanin oo Ilaahay uu ka xarimay aaski rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam. magaalada la yimid xaq baan qabanay baa la yiri hogaankii baan idin la wareegnay baa la yiri ciidamadii baa la jaaftay qabiilada ciidamo laga soo aruursaday islaamka hogaankiisa noocaas lagu tawalliyay. Abu Bakr arrintiisa wax loo dhanaa ma jirin dhowr iyo 10 nin bay ahaayeen. arrinta markay dhacday amiirul mu'miniin maadaama oo horay loo caleemo saaray rasuulkuna uu makhluuq uga tagay wuu diiday Abu Bakr oo wuxuu yidhi kula mabaayacoon maayo. arrinta iyada markii ay dhacday Fatima waxay tiri wariyaaya beerteedii iyo xoolaheedii bay damacday inay la wareegto oo khumuski Khaybar oo waxa weeyaan ummadda muslimiinta abukurti faqriga maalinkii amiirul mu'miniin oo cagta mariyay marxab iyo gaaladii la socotay ka horna ogow Abu Bakr buu nabigu u diray Khaybar oo uu ka soo dagaalamay oo uu ku fashilmay Abu Bakr isagoo hoogay buu yimid. Umar buu nabigu u diray Khaybar oo isagoo hoogay buu yimid oo ku soo jabay sida riwaayooyinka Imam Ahmed ibn Hanbal kitaabkiisa musnadka iyo ghayrkiiba ku qoran xadiidku sanadkiisa uu saxiixaya. maalinka dambe rasuulku wuxuu dhibay calanka nin uu Ilaahay jecel yahay rasuulullaahi maxamedna uu jecel yahay isaguna Ilaahay iyo rasuulullaahi maxamed jecel sallallahu alayhi wa alihi wasallam. amiirul mu'miniin buu noqdo nabiga calamkii islaamka loo dhibay wuu dhaqaajiyay Khaybar buu kaga soo takhalusay marxab iyo gaaladii oo dhan gabaygi waa kii u dhacay waa kii muslimiinta loo soo hoyiyay guusha. hadaba nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam beerti fadag ee la siiyay Fatima az-Zahra Abu Bakr baa wuxuu xadiis baan hayaa وتروا حاجات كيتي حديد كان ومن الأكاذيب ومن الأقاويل وحسن إيراد شريعة الإسلام كلها القرآن كإلهي وحكوا يري وورث سليمان داوود يرثني ويرث من آل يعقوب بل إلهي القرآن كيس كريم كافيري سيدي أنبياء إلهي اسكت حلين جبيهان بهالكا كفيري رسول كان إلهي القرآن كيس كريم كمحكوا يري وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا النبي مدهن إلا الرسول أنا لمدهن وكوا لمدحل كرا لمدهن إلا دحل كرا نبي إنه استجاب أبيه بدحلي بلاد فيه أنبياء إلهينا وإسدحل جرين
waxay dhaheen cilmiga la iska run nabiga cilmiga laga dhaxlaa iyadana waa mas'ale iyadna tan oo kale garab socoto nabigu wuxuu leeyahay talaamiid iyo xir aad u fara badan xirtu waxay ka dhaxlay cilmiga laakiin ehelkiisa waxay ka dhaxalhayaan cilmiga iyo wixii xoolo uu uga tagayba way ka dhaxalhayaan talaamiidiisha iyo dadka u soo waftiyeeyay aabaha uu u yahayna waxay ka dhaxalhayaan cilmiga ayay ka dhaxalhayaan bulshadu in saa wax loogu kala cadeeyo ayay u baahan tahay laakiin bulshadu inay sumalla u heesaan sabeena laga dhigto maskaxdooda iyo caqligooda la gediyo waa mashaakil inteeda la eg laabudda an narjica ila alkitaabi wasunna waxaa waajib ah inaan qur'aanka kariimka iyo sunnada ku noqono sunnada rasuulullahi maxamed ee kitaabka qur'aanka ah waafaqdo taa unbaa sunna ah midda qur'aanka kariimka ah khilaafto nabigu wuxuu yidhi anu ma aanan dhihine waxaad ka tuurtaan dhabarkiina gadaashiisa ka tuura ayib faatimata zahra markay weydiisay abubakar iyo ayadii wuxuu yidhi waxaan ka maqlay nebiga haddaanu nahay ambiyada ilaahay makaanu kulankooda nalama dhaxlo waxaan ka tagnana annagu waa sadaqo warniyaho waxaa ka daabay tiri miyaadan ka helin kitaabka ilaahay alam tajid fi kitaabi illaahi innii arihu abi wa tarihu abaaka odayga la dhihi jira abi quxaafa inaad adu dhaxlayso anigana aabbahay oo rasuulullahi maxamed sala allahu alayhi waalihi wasalam inaan dhaxlahayo war miyaadan kitaabka ilaahay ka helin abubakar wuu afbeelay fabuhita aladii kafar والله لا يهدي القوم الظالمين فاطمة مركا أيضا فغضبت وحكوكنا بخاري فغضبت فاطمة وفي رواية آخر فوجدت فاطمة إن بدن به رواية البخاري وكسر النقطة فاطمة أبو بكر بيوحى ناقضي آديات بيوحى ناقضي فلم تكلمه حتى ماتت إلى أي كلمته أبو بكر لما ينهضني وحن أبنهي فاطمة عرض يدو إن يتهي عرض رسول الله محمد عرض رسول الله محمد إن يتهي عرض إلهي إن يتهي جل وعلا فماتت فاطمة ويدمتي ودفن زوجها علي أمير المؤمنين أيا آسي ليلا همين أبو بكر إنه كنت كذا أما إنه قبر إذا صو حاضر الله ما يدمن جبي أهم بولا حرمي ما حاضري كرتبها اللي قبر سيدة الزهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا بولا الليال وحد أجتان كبدها الصومالية مانتا لبعتها حيسته يدحلك أبوه اللود دي ده يا كتم بي أبو بكر ابن أبي قحافة وسومالي قاركود لوgu sheekay Abu Bakr Siddiq baa la dhahaa ninkaas ka dambeeyay iyo Umar baa u tashaday hadaba taladii iyada ahayd baa naloo soo waariday oo inaga ina dhaxtimid laakiin waajib waxa inagu ah inaan odayaasha kalaamkooda gadaal ka tuurno oo aanu raacno ilaahay iyo rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilaahay baa quraankiisa kariimka wuxuu ku yiri qul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني هدي آتين كو إلهي جعل أنيقا إسورا سيدك محمد هو سيدا دبان ليدي وحاتر هذا هدي آتهين قول إلهي جعل آتهين أنيقا إسورا أيو إلهي جل وعلا إلهي القرآن كيس كريم كان مرلبات هدنوح كلهي وإن تطيعوه تهتدوا هدي آتنا رسول الله محمد وادهنون إيسان فلا وربك لا يؤمنون إلهي وحو يري مر مين إيسان ربكين حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى واحد إذن كنحدي هذه أغسو حكم تكتان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مرك رسولك وحقوينا أيضا قلبي نكهر حرج إيا طيق إيا عريري أيضا كهر إلهي مركو وح إذين قوينا أيضا قلبي نكهر ضيق إيا عريري إيا وهسي إيا دبيسي دبيستان وراهذا إلهي وراهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلقة إني سدادات أو حلقوين كيني أينو أو مقعدرني لقد جئناكم بالحق هل كأيضا أيانا كسو قبقبيني وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين